بسم الله ما شاء الله تبارك الله walaal haddii aad jeceshahay inaad ogaatid sida aan u sameeyay fadlan waxaan ku leeyahay adigoo mahadsan kheyr badan Allah ku siiyo fiidiyowga ila dhameyso insha Allah waan rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah tacaala oven ma lagu sameynin mana la shiilin saa u sameyn doono ka faa'iideysi wacan insha Allah sidaas ayuuna noogu gudutay bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalahayga qaaliga aan jeclahay meel kastoo adduunka daafiisa aad ka joogtaan oo naga daawanaysaan oo nagala socotaan kusoo dhawaada channelkayga dhool dhalaal cooking haddii Allah awood uu raali ka noqdo insha Allah sida muuqaalka bilowgiisaba aad kusoo aragteen waxaan sameysanaynaa chicken iyo chips iyo israacsanayna insha Allah cashaad ka dhigan kartaa wixii aad jeceshahay hadda anaga casho fudud waaye maasha Allah waa ujeediin sidoo kale halkan waxaan ku jarjarayaa oo ku haystaa baradho waxaan ku jarjarayaa geeda sirta ayaan ku jarjarayaa karootada waa lagu hoolaa waana lagu fiiqaa baradhada sidoo kale qaybtan baradhada ku jarjaraysa maasha Allah wax kasta ayaad ku jarjaran kartaa sidaas quruxda badan oo sagsagtimaha ay kaaga dhigaysaa maasha Allah sidoo kale halkaas maxaa ku haysanaa spices ayaan ku haysanaa baradhadeena markaas oo dhameeyno waa kaas saas quruxda badan ku soo baxda waan dhaqaynaa waan nadiifin doonaa insha Allah qaybtan kale maxaa waaye ayadan halka aan ku haysano spices allaale spiceska jikadaada yaala ku darso ama xawaaji allaale xawaajigi iyo wixii carfisa oo jikadaada yaala ku darso insha Allah digaageena waa kana ama chickenkeeni waa soo qaadanay waa dhaqaynaa waa nadiifinaynaa insha Allah biyo aad u kulul ku dhaqi doonaa insha Allah waa iska nadiifinaynaa biyo kulul ayaan soo qaadanayaa insha Allah oo aad u kulul waa u jeedin saas ay u qaacayaan waa ku shubayaa biyaha maasha Allah tabaarakallah waxaan kaloo ku darayaa liin dhanaan iyo cusbo ayaan ku nadiifinayaa insha Allah markaan si fiican u dhaqo oo u nadiifiyo haddana biyo qabow ayaan raacsiin doonaa insha Allah ama biyo kulul wixii markaas ku dhow insha Allah laakiin hadda biyo kulul ayaan marka hore ku dhaqayaa cusbadii ayaan ku darayaa insha Allah sidoo kale maxaan ku darayaa liin dhanaantii ayaan ku darayaa insha Allah waan ku dhaqayaa si fiican ayaan ugu nadiifinayaa burka waa lagu nadiifiyaa sidoo kale qalka waa lagu nadiifiyaa qal haddii xilligaas uu ku dhaweyn waad ka maarantaa biyaha kulul iyo cusbada ayaad ku dhaqan kartaa insha Allah maasha Allah tabaarakallah waa soo dhaqnay waa soo nadiifinay biyo kulul aad u karkaraya ku dhaqnay waa u jeedeen sidaas ay noogu soo baxday haddana waxaan aadi doonaa dhinacaas iyo dabka halkaana carfiska aan ku darsan lahayn insha Allah kabsarta ayaa ka maqan oo kaliya gadaal ayaan uga dari doonaa saliideeni ayaa dabka noo saaran wax yar oo basal ayaan ku darnay saad arkaysaanba basal badan waad ku dari kartaa xilligaas basashana oo yareysan kartaa taas wax dhibaato ma laha adiga ay kugu xiran tahay marka hore waan ku carfin doonaa insha Allah basasheena saas ay noogu gudubtay haddana maxaa ku soo darsanay chickenki ayaa ku soo darsanay insha Allah dhinacaas hoose markuu xoogaa ka shiilmo dhinaca kale ayaan u gadgadinaynaa insha Allah wax yar oo biyo ayaan ku dari doonaa kadib ayaan hagaajinaynaa markii aan labada dhinac ka shiilnay biyo ayaan ku darnay saad arkaysaanba biyahaas markay dhameysato kadib ayaan hagaajinaynaa insha Allah waa carfiska ku dari doonaa haddii Allah awood uu qadaro biyahaas noo soo dhameysato waa u jeediin dabkana insha Allah meel dhexaad ayaan ka dhiganaynaa la socod wanaagsan walaalahey qaaliga ah ka faa'iideysi wacan ayaan leeyahay soo dhawaada ha ismarteenina insha Allah intan maxaa noogu shiilmaaya baradhada ayaa noogu shiilmaaya ama jibsigiisa u taqaaniinba insha Allah haddana maxaan ku laabanaynaa chickenkeeni ayaan ku laaban doonaa insha Allah chickenkeeni oo biyaha noo soo dhameysta haddana waa kana saad arkaysaan wax yar ayaa salka uga haray waxaas cagaarka ah u jeedin waa toonta iyo kabsar noo diyaarsaneed hore ayaan channelkayga u soo geliyay dib u booqo ayaan ku leeyahay waad ka heli doontaa insha Allah waad ka faa'iidi doontaa walaalaha faa'iiday ayaan ku leeyahay sidoo kale maxaan ku soo daray waxaas jaalaha aad u jeedin waa maraq digaag haddii aadan isticmaalin iska daa cusbo ku bedelo jab ayaan uga daray xabada dhan kuma wada darin haddana maxaa ku darayaa carfiska haday aan idin soo tusay wax allaale wixii jikadaada yaalo xilligaas aad cuntada karinayso ku darso waxba ha isku ululinin insha Allah xawaajiyada isku dardarka ah tomato sauce waxaas jaalahana maxaa waaye mustard waaye maasha Allah cuntada caraf iyo dhadhan uu siina lagama sheekeyn karo qofkii u dhadhamiyo tijaabiyo ayaa garanaya insha Allah oo ka heli doona waan isdhex gelinaynaa insha Allah hadda korka ayaan uga darnay waan isdhex gelinaynaa si fiican ayaan isku dhex gelin doonaa insha Allah si carafta iyo wax dhadhanka ay gudaha uga galaan insha Allah hadda dabku u gaabsan waa u jeediin low waa dabka insha Allah marka si fiican isku dhex gelino dabka ayaan u dheereynayaa markaan dabka u dheereeyo insha Allah
sidaas ayaan gadgadiska ugu wadayaa ilaa sida aan rabo ay iga soo baxdo insha Allah. waa ujeedin sidaas tartiib u gadgadi had dabka u gaabsan yahay marka dabka u dheereeyo insha Allah kama tagaysid waad la joogaysaa insha Allah si aysan kaaga dhagin digsiga. waa ujeeda wax carafta dhan inay dhaxda ka gashaa rabaa insha Allah markay diyaar noo noqoto ayaan isku soo noqon doonaa haddii Allah awood uu qadaro si ku soo baxdana ila arki doontaan. ugu dambeyn markii aan dhameynay wixii saliid ahaa halkaas ayaan uga tagaynaa waad ujeediin chickenkeena waa kaas sidaas quruxda badan leh ayuu noogu soo baxay maasha Allah tabaarakallah inaba caadi ma ahan indhihiina ayaa idin macalin ah wixii dhadhanana waa xagayga insha Allah la socod wanaagsan ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay. waqti badan kaama cunin oo foorno laguma sameynin oo ma aadan sugin xilli badan sidoo kale saliid aad u fara badan laguma shiilin waad arkayseen qaab fudud ayaan u sameeyay walaalahayga qaaliga ah. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah kana faa'iidi doontaan asxaabtiina aad uga faa'iideyn doontaan insha Allah iyo caruurtiina qoysaskiina waliba iyo martidiinaba insha Allah. walaalahayga qaaliga aan jecelahay fadlan waxaan idin leeyahay haddii aad nagu cusubtihiin soo dhawaada haddii hore aad noola joogteen sidoo kale soo dhawaada haddii aad nagu cusubtahay walaal waxaan ku leeyahay subscribe-ka hanaga baqiilin insha Allah nagu caawi meesha gaduudana taabo gambaleelkana sii taabo si muuqaalada aysan ku dhaafin haddii hore aad noola joogtana comment-ka ilaaga insha Allah soo dhawaada. walaalahayga qaaliga aan jecelahay dhiirigelintiina waa ii muhiim insha Allah la'aantiin abaar waaye waxaan idin leeyahay inta aan ku kulmi doono muuqaalo kale oo idin xiiso gelin doona insha Allah maxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabaadiin iyo nooli kulante wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.